How do you see sidee u aragtaa if haddii we talk about aan ka hadalno the political situation xaaladda siyaasadeed in Somalia ee Soomaaliya? How do you see sidee u aragtaa if haddii we talk about aan ka hadalno the political situation xaaladda siyaasadeed in Somalia ee Soomaaliya? Not bad ma xuma, not bad ma xuma. To ask you aan ku weydiiye the first question su'aasha ugu horeysa. Since ilaa 1991 when markaasoo the military government dowladda militariga ahayd collapsed ee burburtay, our people dadkeena waa killing each other with dilayeen, waa killing waxay dilayeen each other midba midka kaleeto. Why don't our leaders maxaysan hogaamiyaasheenu bring u keenaynin sustainable solution xal waara, sustainable waara solution xal to our country wadankeena? Not bad ma xuma. To ask you aan ku weydiiye the first question su'aasha ugu horeysa. Since ilaa 1991 when markaasoo the military government dowladda militarigu collapsed ay burburtay, our people dadkeena waa killing each other with dilayeen. Why don't our leaders maxaysan hogaamiyaasheenu bring u keenaynin sustainable solution xal waara to our country wadankeena? Most of inta badan our leaders hogaamiyaasheena are not really diyaar uma ahan to create inay abuuraan reconciliation dib u heshiisiin among Somali tribes qabaa'ilada Soomaaliya dhexdooda, among dhexdooda Somali tribes qabaa'ilada Soomaaliyeed. Tribes waa qabaa'il. They are busy waxay ku mashquulsan yihiin fighting for inay u dagaalamaan their personal issues arrimahooda u khaaska ah, arrimahooda shakhsiyadda u gaarka ah inay u dagaalamaan unbay ku mashquulsan yihiin. Most of inta badan our leaders hogaamiyaasheena are not really diyaar uma ahan to create inay abuuraan reconciliation dib u heshiisiin among Somali tribes qabaa'ilada Soomaaliya dhexdooda. They are busy waxay ku mashquulsan yihiin fighting for inay u dagaalamaan their personal issues arrimahooda shakhsiyadeed. Where is the role of the youth? Away kaalintii dhalinyarada. Where is the role? Away kaalintii of the youth ee dhalinyarada. The youth dhalinyaradu neglected waxay dayaceen their role kaalintooda. The youth dhalinyarada neglected way dayaceen their role kaalintooda. They are contented waxay ku qanacsan yihiin. They are contented waxay ku qanacsan yihiin to clap inay u sacbiyaan for the greedy leaders, for the greedy leaders hogaamiyaasha dhuuniga ah, hogaamiyaasha iimaanka leh inay u sacbiyaan bay ku qanacsan yihiin. They are contented waxay ku qanacsan yihiin to clap inay u sacbiyaan for the greedy leaders hogaamiyaasha dhuuniga ah. Greedy waa dhuuni oo qof sorry halkaas greedy yes waxa ku xig kale halkan waa ma aha sorry and for the greedy leaders marka waa hogaamiyaasha dhuuniga ah and figure out oo ay la faguraan tribalism qabyaalada.